Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan guutada shanaad iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Burfiiq oo u dhexeeya magaalooyinka Beledweyne iyo Farlibaax waxaana ka dhashay dagaalka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen koloyan gaadiid ah oo galbinayay mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayna qayb ka ahaayeen wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabelle, taliyaha ciidamada booliska Hirshabelle Korneyl Xasan Dhiciso Xasan, taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin kale oo saaka ka ambabaxay magaalada Beledweyne. Mas'uuliyiinta maanta la weeraray ayaa deegaanka Farlibaax oo 45 kiiloomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Beledweyne waxa ay u wadeen gargaar loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaan hoos yimaada magaalada Farlibaax. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada ayaan weli ka hadlin weerarkaasi lagu qaaday saakay iyadoo oo dhowr jeer sidaan oo kale loogu weeraray deegaano u dhexeeya Beledweyne iyo Matabaan.